السلام عليكم أصحابي سيتهين مفيعنتين ما شاء الله. قلبت waxaan sameynayaa insha Allah cashadana raba inaan idin la wadaago saan u sameeyay. Marka waxa weeyaa malaay iyo bariis soo dhawaada. Insha Allah malaygana marka hore soo nadiifsanaya ka bacdina waxaan marin doonaa qudaar iyo wixii aan u diyaarsaday. Marka insha Allah saana aan u sameystaa daawasho wacan. Halkan waxaa ka bilaabay 4 xabo toona aan ku ritay iyo yaanyo mirooley. yaanyo kastoo ku taala ku darsan kartaa. Waa isla meeshii basal iyo barbarooni baan ku darsanayaa insha Allah. Waxaan isticmaalayaa yaanyo shiishiid wax yar iyo xabad maraq digaaga. Marka xabad maraq digaaga dhanaankeeda waa dhanaan yar. Laakiin aniga intaas aan rabaa haddii rabta adiga ka badan ku darsan kartaa. Saasuna ku habboon yahay in ma aragti xoogaa la dhanaaniyo. Marka asxaabay soo dhawaada fadlan haddaad subscribe hore iigu saarin ii saar. Haddaa hore ila joogtayna waa mahadsan tahay. Intii subscribe-ka ii saartay, intii ii daawatay, intii like ii saartay, intaba waa u mahad celinayaa. Mahadoo dhan Ilaahay bay u sugnaatay. Alxamdulillah. Marka asxaabay hadda waa shiitay. Markaa shiita ka bacdi xawaaji waxaa marin doonaa alaabtan aan shiitay iyo xawaaj iyo liin dhanaan. Markaa kadibna aluminium aan ku duubaa hoosta gelinaa. Alaabtan shiida la'aan waaye ma garatay. Intee hoos kugu jirto waxyaabo kale oo badan qabsan kartaa. Markaa ka bacdina ilaa adigu waxay ku jiri kartaa 1 saac iyo bar ama ka badanba insha Allah. Marka waa ka isla socod wanaagsan. Asxaabi waxaa ku darsaday xawaaj ka loogu talagalay in wax lagu dubo oo digaaga iyo hilibkaba lagu daro iyo ma aragtay filfil iyo waxa kale oo ku darayaa liin dhanaan. liin dhanaantana dhadhan cajiib ay siinaysaa ma sha Allah. liin dhanaantaas aan marmarin oo ku tutuujini kadibna wayba dhamaatay. Markaa kadibna waxaan rabaa inaan casho kale waxyaabo kale aan hawl kala sii qabsado iyo inaan wax karsado. Marka insha Allah waxa aan karinayo dhan waa idin la wadaagayaa. Halkan waxaa ku soo diyaarsaday birtan soo qaatay saliidan ku darsaday ka bacdina waxaan ku ritay 3 xabo baradho waaweyn aan soo jarjaray iyo xabad karoota iyo xabad basala iyo xabad maraq digaaga iyo filfil. marka asxaabi intaan cabaar isku shiilaya. Marka intaan xoogaa isku karsanto isku hurto aan xawaaji waxaan ku darsan doonaa insha Allah basal iyo barbarooni. Kadibna intaan saasay ku dhamaatay waxaa ka rabaa wax yar oo dhadhan leh oo ma aragtay bariis aan rabaa inaan kariyo. Bariiska aan ma aragtay dusha ka saaro oo cuntada ku socodsiinayo. marka saarta oo samaysan kartaa daarta chips yaa samaysan kartaa laakiin hadda antana igu soo dhacday baradhadan saasa u yaryarey. marka asxaabi waxaa ku darsanayaa xawaaj dhuudhuub iyo xawaajkii aan hilibka aan ku darsanayay malayga. marka intaan xoogaa ku huurinayaa kadibna basal iyo barbarooni aan ku darsanayaa.
marka intaana ay ku eg tahay alaabtan inaba caadi maaha, lagama sheekeyn karo, waa wax aada u macaan. hadaarta waxyaabo kale u isticmaali kartaa, bariis bas ma ahan in lagu cuni karo kaliyaata, wax badanaa lagu cuni karaa. marka asxaabi waa kana haddana bariiska dalacanaya. bariiskan waxaa ku karin doonaa insha allah biyo. ana waxaa jeclahay bariiska inaan maraq ku kariyo, laakiin hadda ka maraq diyaar ma aha. marka asxaabay digsiga waxaa ku ritay saliid iyo ma aragtay barbarooni iyo basal. marka maadaama aan saliid ku karinayo waa inaa waxyaabo badan aan ku dardaraa, aan ku karinayaan dhehe biyo. marka waxaa ku daray, waa la dadaalayna xoogaas u dhadhan u yeesho, basal iyo waxaan ku daray xawaaji iyo toon aan soo tumay aan ku daray haddana. kadib haddana waxaa ku dari doonaa filfil iyo heyl iyo maraq digaag, 2 xabo maraq digaaga ku riday iyo xoogaa yaroo filfil ah. iyo xawaashkii aan isticmaalayay. intaana marka isku qaleynaya, xoogaa isku shiilaa, kadibna bariiska ku darsanayaa. bariiskan marka uu qalalan yahay, mar horaa dhaqday, cabaar banaanka yaalay. marka insha allah la socod wanaagsan. cabaar waa inaa maaragtay isku qaleeyaa oo isku shiilaa si fiican iskugu dhex galo. marka asxaabi biyo kulul ku shubay. bariiskana qofka asaga qiyaasan karo, biyahana asaga qiyaasan karo, muhiim ma ahan taas. marka waxa kale oo aan ku darsanayo waxay tahay subag kasta oo ku yaalo aa isticmaali kartaa, maadaama bariiskan aan lagu karineynin maraq, maaragtay biyo kaliya ma anfacayaan. subag waxaa ku darsaday rootiga. marka waa kana wax yar kadib uu bislaaday, biyo uu gursaday. lagama sheekeyn karo, bariis furfur ah, aada u udgoon. marka maasha allah. waxaan kasoo bixiyey hoos kalluunkan weli uu qoyan yahay, yacni muu qalalin, laakiin anaga saanaa ku jecelnahay. waxaa kasii fiican laakiin inaa cabaar uu kusii jiro oo uu si fiican u guduuto, uu qalalo. marka asxaabi waa kana. assalaamu calaykum. haddaad subscribe ii saaran hadda ii saar.